dadka xaafadan ku nool waa xaafada Ayaxwan waxa laga soo raray gudaha magaalada Hargeysa halkan waxa ku nool 54 qoys oo magaalada bartankeeda laga soo raray waxa ku gadaaman duruufo nololeed oo kala duwan waxay xaafadani ka aradan tahay dhammaan baahiyaha asaasiga biyaha waxbarashada caafimaadka wadooyinka quraanka iyo inay diinta bartaan dadka halkan ku nool waxay noo sheegeen in da'yartii wax uga baranaysa magaalada Hargeysa fogaanta dugsiyada ay ka dhiganayeen markii ay gaari waayeen ay xaalad amni darro ay isaga daayeen sidoo kale waxay sheegeen in aanay hayn meel loo soo maro oo xaafadani uu gaadiidku ka soo galo baahiyaha ku gadaaman bulshada halkan ku sugan ayaa ah mid aad u badan isla markaasina ay dadkani tabanayaan bal hadda ila daawada bulshada halkan ku nool iyo duruufaha ku gadaaman anigoo Fawzi Ismaan Cali waxaan ka hadlayaa anagoo 7 sanadood halkaan naalay oo nalagu soo raray cudud xoog leh oo taliya doolaal halkaan dhigay dibna aan noogu soo noqon hay'adaha iyo barakaca inkastoo aanan cid waxba ka arag waxaan nahay dad tacadi iyo xoog lagu soo raray ilaa maalintii la keenay ilaa maantana wax baahiyo asaasiga oo haysanaa ma jirto waxaan nahay dad muwaadiniin oo dalka u dhashay hadana aan ahay waxaan doonaynaa oo dawladda ka codsanaynaa oo mas'uuliyiinta ka codsanaynaa oo hay'adda barakacayaasha sidaanu dulmi ka galnay intayna dhigtay naga tagtay oo noo iman waxaanu leenahay carruurteedu waxa ay tagtaa dugsiyada ka ugu sheeye magaalada Ayaxfoor leeyla ayay ka soo dhigtaan ka noogu xigay Afoonfoor noo dhigtaan wuxuu tagaa dahib guray ma aysano bas waxaan ku saarno ma aysano waxaan ku geyno meel sida dadka waxa ay baabuurta u saartaan waxaanu deganay go'aanaha wada ma haysano biyo ma haysano booyad baa inaan dirqi noogu keenaa biyaha dadka waxa loogu shoono looguma shoono anaga waa nagu qaali waxaan laga qaado 70 kun oo Soomaaliland angiga 5 foosta qaada 5 cishaan cabnaa ma haysano cid aan ula noqon waxay noo soo martaa bahashi halkaa inaan xar ay nooga soo wareegtaa laba saac markaan 3 cisho ma anagoo biyo la 3 cisho ayaa gacanta aan cagta ugu tagnaan kuna kaale noosho bariyo oo raadanahay marka waxaan ku hay'adaha ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland hadii uu codka iyagu soo gaaro inuu wado noo sameeyo in baahiyaha asaasiga oo mushayada ma hesho xanaano oo helnaa ma jirto faluuja xanaano noogu dhow ayagoo aanan guriga gaarsiin bay agtayada saagu muleeno ilmihii waxaan ku kala qaadno weyn waxaan leenahay intiina maqlaysa ee naga naxaysa ee madaxweynuhu horeeyo waxa weeyaan in la soo gaaro ayada barakaco anaga ma arag waxana la yiraahdaa Ayaxwan ayana la yiraahdaa cidina ma tima waxay raacsan tahay Ayaxa Soomaad garan waxa weeyaan ma aragno wax allaaliyo wax baahiya asaasiga ama bahaysan magaalo doolaal baan leenahay waxaana soo raray taliyaha doolaal oo ilaa maalintu la soo raray ilaa maanta aan noogu soo noqon waxan xariisa oo ilkal gacalna tusin waxay ku tiirsantahay dhagaxaha darkayso shaygaasaan gurana hadii iska ruwayinku naga iibsadaan iyo hadii noo iman waayaan warda biyaha ku afraan noloshu nin walba heer bay u taagantahay kii cudud lahaana wuxuu baxaa suuqa ama kuulaha doonto ama suuqa salada ku iibiyo uu baxaa intii aan bixi karayna guryaha ku go'do caafimaad darro ma haysano waxbarasho ma haysano in alaalinta baahiyaha asaasi la helo ma helno marka waxaan ka codsanaynaa in allaaliya intii madax iyo intii maamulana maqlaysa maanta codkaygu gaadho madaxweynaha ugu sareeyo in wala soo eego waxaana gacanteedaan ku samaysanay inta ehelka ka soo guranaabaan toltolana wax kale oo soo gaadha ma jirto ka tagay oo ka haajiray guryahoodii oo xaafada saa u dul fadhiya baahiya awgeed xilliyada guryaha qaar ay fadhiyaan oo waxbarasho haysan in loo ballan qaaday maalintii la soo dajiyay in 250 guri ay noo saaran yihiin daaqada wali ka hataa in dad kale loo dhisay aanu garanayno oo haysan in sharciga inta loo sameeyay waxa idin bixiga guriyihii oo loo dhisi doono waxaanu nahay 480 qoys 250 qoys imka la idin dhisaya wali ka hataa ma hayno 7 sanadood baanu naalaa wax noo dhisayna ma hayno waxna la hadal hayana ma garanayno walaa cid kale loo dhisayana ma garan karno waxa jooga carweeriro tahli waayay oo guriyaha ay u dhex fadhiyaan xilliga kuwii yar dhaqaaqi karayna waxay tagaan daamaha aad aragteen marka waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh in si karaamo leh ay noo soo gaadho dadkeedii baanay dadka shalayna codka ugu ridayay maantana ay ka sugayaan baan dhex qabanayaan waxbarasho la'aan iyo meel ay u dhaqaaqaan oo socon kar waayeen
waa ardayda yaryar ee imka 7 jirkii 8 jirkii 9 jirkii ardayda aan dhaqaaqin inta 12 jir gaadhay 12 jir gaadhay waxay tagtaa ayax 4B ay ka soo dhigtaan inta fanfoor gaadhay barigeena la soo raray fanfoorada gaadhayna waxay ka soo dhigtaan dib guri inta loo waayay baska guriyahay fadhiyaan waxba laali waxay qabtaan ma la saaqid bay ku dambeeyeen maxay qabtaan soo fadhiisay iyo kaalayo waa kuwa wadada arkaysa kamarada ku qabo wax ay qaban karaan ma jirto waxbarashana waa loo taali waayay halkii ay ka joogeen way ka gaari waayeen waa kuwa deedna ku dambeeyay waxbarasho la'aan u diranaynaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee tacliinta sare waxaan u diranaynaa baaq iyada ku kooban waxaan u leenahay waxaan dadkaagii mana haysano baahiyo asaasiga ah dadka siin jirteen anagu waxbarasho haba yaraatay idagama hayno haddaanu nahay dadka danyartay halkaa degan dugsi hoose dugsi sare midna idagama haysanaan leenahay waxaan u leenahay si degdeg ah dadkiini baanu noo soo gaadho danyaraha noogama darta laba dugsi laba golaas oo loo dhisaa noogama darayso maanta oo inta yaryar guriyaha joogta noogu yaacdo in xanaanana loo sameeyo baahiyaha asaasiga aba yaraatay ma haysano wada ma haysano ilmo hadduu wada haysto waaba ordi karaa buurta 4 koona ka xidhan baan joognaa ilaahayna abuurtuna ku sugayno marka waxaan iska nahay dadka ilaahay daaburtay uu sugaya u maqanaanu jirin marka haddii maqasho wasaaradda u sareysa ee tacliinta waxaan leenahay wasiirna soo gaar waanu baahanay dadkaagi baanay laba qolod noo dhistaan noogama darayaan oo 2 iyo 1 oo kaliya hadaad noo dhisto annaguna marka ilaahay umada kale noogu dari la marka waxaan leenahay soo gaadha tacliinta biyaha wasaarad kasto ay saamayso baahiya caafimaadka laftigiisa wasiirka caafimaadka aan leenahay anaga halkaas aan loogu mula qaar baa isku go'a qaar baa dirqi ku baxa qaar baa wali ka hadda madaxyada ay dhulka ku dhaceen naafo laftigiisa wasiirka caafimaadka aan u diranaynaa dadkiisi baanu wakaalada biyaha aan u diranaynaa leenahay laftigeeda biyo ma haysan hal booyada noo keentay noo tiraado dhaamiya baa nagu filan marka meel kastaba baahi kasto aqal leeyay oo bilaadan u leeyay wasiirku leeyahay anaguna waa u baahan mana haysano waxaan ku gaaray anigu Faysal Axmed Cabdiye dix sabada man ku soonay halkan magaal dollar baan soo ruux birqoyd bixi laga soo reebanay wax alla wax noo qabtay wax alla wax la siimina ma jiro buushada ka soo wada dollar wada ma haysano caafimaad ma haysano furasi ma haysano mid haduu noo waxba hormeed baan ogo meel mariyaal waay biyo aan baan naga daran baahi baan naga daran dad shilin baan naga daran dad waxba haysan xaafada jooga tasaasan tuxsan awlaadada caafimaad ma haysato iskuul ma haysato wada ma haysano maxaa ku dad Axmed Gurwe ugu dhow amba wax ku dhow ka cabdiidanaya ayaa ka dhow wada waadiyarka mid wada ma haysano biyo ma cabaadna bood mar noo keenta noo dhigo oo malcaamad noo sameeyo oo madariso noo sameeyo oo wadooyin noo sameeyo ay waa shacabtu wax leh waxa weeyaan makaanigu marxuumkan carruurta waa 3 habeen buu sii dhul jiray 3 sanadoodna goobta waan ku hayay wax goo caafimaad iyo wax soo dul joogsada iyo wax noo yimaada midna ma aragno curyaankii baanu leenahay kii cagaar kii waa laabaanu leenahay kii dhuljiifka ahaa baanu leenahay goob waxbarasho ma lihin goob caafimaad ma lihin wado ma lihin suuliyaal ma lihin laba xaafadood oo kala jeexan baan noo xaafadaas suuli kaliya naga dhaxeeyo xaafadaas aanu naho ragoo ku jiraan soo taagna dumarkoo ku jiro rag soo taaga waan isla kadeedana waan isla kashifanahay kolka waxaanu ka codsanaynaa dawladda iyo hay'adahaba in si dhaqsaa oo degdega ama wada ha noqoto ama goob caafimaad ha noqoto ama goob waxbarasho ha noqoto ama caawimo ha noqoto si degdega wax nolol soo gaaro bilaha Ramadaan inta wadani dadka ma afurto waxa ku afurto ma hesho kolka aad baan u cajibanay oo aad baan u dulmanahay ilaahay hanaga tisay mariyo dadka intu magaalada naga soo saaray halkaana goobtaana dhigay ee noogu soo noqon waayay tisayga ilaahay baan ka sugaynaa dadkii sida noo galay أنا عايشة محمد محمود وحن كان ليا حافظة يحبيوان وحن كعطينا وحن حافظ دولار بان اللي هذا وحن كعطينا دولة الشرف تله halka la nuusan doolar lagu soo raray ee lama keenay cid inooga imanin waxaan ku dhaday tahay caawimo
hadday caawimooyinka la bixinayo maxay tahay waxa la noo keenay ma jirto waxaan masaakiin dadka danyarta masaakiinta halka la soo dhigay waxaan doonaynaa dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa inayna soo eegaan waxaan doonaynaa danyar baan nahay umushiyada dhaqaale ma hesho waxbarasho ma lihin goob caafimaad ma lihin goob waxbarasho ma lihin wada ma lihin cidna soo eegtaa ma jirto halkaas lana soo dhigay marka dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa hay'adaha iyo dadka caawimada bixinaya tabuur in halka noogu keen waxaan u baahanahay waxaan maanta diiday ma lihin barayo hagaagsan ma lihin roobasha buulasha gacmaha ku samaysanay wax dawlad nooga timi ma jirto waxay noo keeneen ma jiro hay'adaha barakacayaasha waxba nooma keenaan waxna la nooma keeno suuliye ma lihin waxaan doonaynaa in wada la noo furo wada la noo sameeyo oo maanta biyo ma lihin waxa la xanaasana ma jirto dadka masaakiinta ee danyarta aan nahay dadka codka laga doonayna waa nahay marka la noo badan waxa la noo qoraal nooma yimaado waxaan doonaynaa marka in la noo eego oo maanta caawimada la bixinayo wax la nooga soo gaarsiiyo kuwii iska haga baaban ku socda anigu markan suuliba waayo cabdi baleerada marka waxaan leeyahay magaalada ayaxwan biibaan nahay waxaan leeyahay magaalada soo dhan tahay waxbarasho ma haysato goof caafimaad ma haysato tawmusha bilaadhiig bay iyo lagu geeyaa maxay ahayd xanaanada inan mataana dhashay ilmeerba ka xanuunsaday wax lagu geeyaa la waayay dhakhtarka in badan bay ku jirtay marka dumarku iska dhibbadan dumarka dhalaya marka waxaan u baahanahay wadadii waxaan u baahanahay goob iskuul baan u baahanahay caafimaad baan u baahanahay waxbarasho u baahanahay dadka caawimada la siinayo annaga waxba nalooma keeno marka dadka masaakiinta cid wax karsad kuwaana waxba haysanin baa jiraan waxba karsanin marka kuuliyada dad baa iska tago markay helaana way karsadaan markay waayaanna way iska fadhiistaan dumarada oo dhan shayga la wada guraa marka waxaan ka codsanaa magaalada dawladda waxaan ka codsanaa si sharaf leh in dadka masaakiinta way ilowdeen si sharaf leh u soo gaadho ay noo soo ogaato cabdi ardayda aan waxa dhigan ka midnahay waxaan ka codsanaa dadweynaha ku nool inay noo keenaan waxbarasho iyo ana waxaan baranaa waxba ma baran buurtaan kalba dhinaca carna